عليكم أنا حمدي محمد خليف waxaan ka mid ahay groupka Worldwide Somali Students and Professionals waxaan ka qalin jabiyay jaamacadda University College London ama UCL waxaan ahay events coordinator ka oo WSSP anigoo ah Dr. Sharmarki Abdinasir Mohammed oo ku takhasusay solid state chemistry ama dhinaca soo saarka daawada anigoo xilkayga ah hoggaanka dadka tacliinta leh oo Worldwide Somali Students and Professionals magacayga waxa weeye Dr. Saeed waxaan ahay dhakhtar ku takhasusay caafimaadka sanbabada waxaan u qaabilsanahay Worldwide Somali Students and Professionals qaybta caafimaadka magacaygu waa Maxamuud Maxamed Macali Ibrahim waxaan ku takhasusay cilmiga beeraha waxaanan ahay madaxa barnaamijka beeraha Hi, my name is Abira. I'm a biomedical scientist by training and I work for Worldwide Somali Students and Professionals in the fundraising and sponsorship department. Anigana magacaygu waa Qaasim Maxamed Cali waxaan ahay directorka WSSB oo u taagan iskaashiga ardayda iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed. Walaalayaal waxaan ku midownay ama ku bohownay soo celinta ama dib u dhiska ummadda waddankeena Soomaaliyeed. ogaadana inaan raali ka noqon doonin waddankeena inuu sidaan usii burbursanaado anagoo adduunyada ku nool aqoonta cilmiga iyo horumarinta iyo wax kasta waddankeena u baahan yahay adiga ay kugu jirtaa sidaa darteed waxaan kaa codsanaynaa inaad nagala qayb qaadatid sidaan ummaddeena iyo sharafteena dib u soo celshanayn fadlan ka soo qayb gal dadaalka ee wadda WSSB waad mahadsantihiin horta anaga dibadda dadkeena jiray haddaan iskugu jirno aqoon-yahan ama arday oo hamile inay kusoo baxaan aqoon-yahan waa dad badan oo iskaashataa jira oo gruuba samaysatay marka dadkaas waxay go'aansadeen inay dalkoodii ku noqdaan oo ay intay wax ayaga ka soo baran lahaayeen iyo intay cilmigooda iyo waxbarashadooda ku caawin lahaayeen dalkooda inay soo gudbiyaan aniga waxaan ahay dhakhtar ka shaqeeya dalka Ingiriiska marka xiriir waxaan la yeelanay jaamacadda Dr. Abshir marka saas daraadeed baa anaga anoo matalay groupkan Worldwide Somali Students and Professionals la dhaho meesha saas ugu imaada marka hadda aniga 2 asbuuc aan joogay course baan waxaan ka bixinay jaamacadda oo loo dhigay dhalinyarada semester 8 ka ku jira maantana course-kaas imtixaankeeda aan ku jirno marka waxaan rabnaa dadkii fiicnaa inay Soomaaliya qabtaan rabnaa qof soo kacayo subaxii oo og mushaarkiisa inuu meel kale ka helayo hadduu spare timekiisa maybe 1 hour maybe 2 hours maybe 3 hours maybe once a week maybe once a month hadduu spare gareeyo waqtigiisa uu isdhaho let's help Somalia in whichever way he can then isbedel insha Allah ta'ala Somalia will come and it will definitely come marka waxaa jira dhakhaatiir badan oo ku nool dalka dibadiisa gaar ahaan waddanka adigu ka timi Ingiriiska oo kale marka ma jiraan dhakhaatiir hamiga adiga aad ku timi halkan oo kale iyaguna ku haminay inay yimaadaan bal mar buuqdaan dalkii way jiraan saahadaad sheegay ururkan Worldwide Somali Students and Professionals waxay damcayaan dad arday aan aqoon-yahada dibadda dalkeeda jooga inay iskaashadaan oo waddankii ku soo noqdaan si qof aniga 2 asbuuc u joogaya ama qof u soo noqonaya rasmi ahaan iskugu jira marka dad dhakhaatiir xagga way joogaan hamigoodana way ku jirtaa dalkii inuu soo noqdaan laakiin se wali waxa ku jiraan processkii iyo inay isdaransiyaan inay soo noqdaan dhakhtarkan aad ayaan ugu faraxsanahay nimaashaha uu noo yimi waa mare wuxuu ka qayb qaatay maaragtay dhiirigelin
aqoonta maaragtay ardada oo dhinac kasta ha ahaato wuxuu siyaadiyay maaragtay aqoontii ardayda waxaan kaloo ku waanlayn dhaqaatiirta kale inay saas kale noogu yimaadaan ama hal week 2 week ninkii maalin noo yimaada oo one lecture na siiya annaga waxay noo tahay faa'iido laana anagu waxaan nahay research arday samaynaysa ama waxbarashadooda kobcinaysa marka qof kasta oo xaraf noo siyaadiya ama one lecture na siiya wuxuu noo yahay qof wax noo qabtay ayuu noo yahay دكتور جبرتي ما شاء الله هذا يعني فرح سنة هذا مدة لبا أسبوع أيوه نو ذا كورس أما سيمينار كوساب سن كلينيكال إكزامينيشن أما سيدا بيشن تيجا يقف كاختر يسوق بالهاين مدة لبا أسبوع ذا وحن كفاية إن فايدو ينبذن ما دام أنا جه ملذ يدو يتهين عن دكتور نما أن هيك سنة دكتور كان ودل كدبدي سنة وجاي يهاي دكتور قبل هذا عنده شيء ونردي دي سوي شعلي إنه هرم مريو مركب وحن كنت مامي كرا برنامج كاس برنامج عن وقفايني لبا أسبوع مدة ما أنت نحن فرسنا أقسام دكتورك ما شاء الله ما شاء الله wax badan baan ka dhaxlay waliba xagga waxa gacanta laga qabanayo sidaba medicine ku kala baxasaynay iyo artist waxyaalo la qorayo theory artist wax la qabanayo wax gacanta laga qabanayo wixii gacanta laga qabanayo buu naga xaqabtiray intuu yaqaanay professornimo specialist oo waliba uu yahay respiratory ama waxa loo yaqaan sanbabka aad buu nooga xaqabtay waxaana leenahay jazakallahu khayran marka waxaa noo fiican haddaa dadweynaha Soomaaliyeed inaan isdaba qabano wixii dhacay rag iyo dumar beel isdaba qabto oo dhibka la iska dhaafo Ilaahay dartiisa oo noqdo oo dadku qalbigooda isku furaan oo wax la wada qabsado maanta hadii xaflada meesha ka jirto iyo shaydaan inta ka jiro waa la soo buuxsamela laakiin markii la Ilaahay dartiisa isugu soo baxno waxa wadankeena Soomaali maxay sheegaysaa maxaa ka hadlay asku kara هذا ما هو بعد سيد اللي يراز ماشي للجوجا يا أم قنو السوق دكان يا أم قنو السوق أنا Soomaaliyan ka imaada mar dhow Soomaaliyan tagi waqti aan aad u fogeyn oo ay bil hadda ay u maleena bil inay ka soo wareegtay waxa way Soomaaliya dhibaato xoog leh ka jirta dadka Soomaalida xukuumadda cidna uma maqna ceelna uma qodna annaka wadankaygu waa qani barwaaqa dhextaala laakiin dhibaatada oo ah aqoon la'aan iyo dadkiisi ay wax u soo sameystaan ama soo culus soo baxaan annaga laakiin waa inaan dadaalno gabdhaha iyo hooyooyinka iyo anu hadda rag lama hadla ogaada hooyooyinka ilmaha yaryarka intaas waxaan idinku boorinayaa inaan dadaalno oo u samayno si ay dadkaas ay dhibaatada uga baxaan ilmahaas u istaagay maanta Soomaaliya inay wax ka qabtaan aniga waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax ballan qaadi kara laakiin waxaan idin ballan qaadayaa inaan haddii aan dhaqaale idin financial idinku garab istaagi karo inaan idinku garab istaago aan codkayga idinku garab istaago supportkayga inaan idinku garab istaago saddexdaas rabaa inaan hooyo kasta oo Soomaaliyeed meel kasta oo joogto message u diraa mid joogto Soomaaliya aan ka rabnaa inay hawshaas nala qabato muqdisho gudaheeda mid madfac dhexdiisa joogto inay nala qabato mid Puntland joogto inay nala qabato Somaliland mid joogto inay mid Baydhabo joogto inay nala qabato mid kasta inay nala qabato shaqadaas oo aan u istaagno si aan caruurtayda aayahayga dambe inaan uga fikirno My name is Selma. And my name is Sophia. I am 10. And I am 10 too. We are proud to be Somalia. I know you think we're too young to understand what's going on in my country, Somalia, and I feel sad when I watch the news on the TV because they don't have any food and education and opportunity I have. I get jealous when my friends talk about going on holidays to their countries as I can't experience that because of the way the TV talks about Somalia. And because of the way my mom describes beaches and how beautiful it was before. The man himself, Martin Luther King, I have a dream that one day Somalia will be a peaceful and free country. Inshallah, one day Somalia will become as beautiful as Dubai.
We love Somalia. Somali